abbaaro saddexdii habeenimo ee xalay ayaa dab xoogani ka kacay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Oodweyne. dabkan oo dhammaanba laga dareemay xaafadaha magaalada, isla markaana ay dadaal dheer kadib dadweynuhu ku guuleysteen damintiisa, ayaan geysan wax khasaare nafeed ah, inkastoo ay dhammaanba ku shufbeeleen agabkii ay ku hawlgeli jirtay xaruntaasi, sida ay noo xaqiijiyeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmadheer Faarax Cabdullaahi Xasan iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka hawlgala xaruntaasi, iyagoo tilmaamay in dabkani ka dhashay korontada ee soo gala xaruntaasi. qolkan wuxuu ahaa qolka kaydka uu noo yaalo ha noqdo registration wixii laga buuxsama ama kuwa pro ha noqdaan ama kuwa waxa ku kaydoo waxa ku buuxsama ha noqdaan wuxuu ahaa qolkii waxaan ku ay noo yaaleen maxay arkifidaas ay noo taaladahay hadda wax saaro weyn ma ka dhacay meesha waana dhakhtarka quraha ee degmadu haystay gobolka waa dhakhtarka kala qalmeeyay xumeeyay كقولها شيبان يحب الجسم يشيل كلامها فكان باباها خسارة وحاجة عفمات هاي ما كانت تسني المسؤول جالي وأنا قدر الله ده لبترك شوكم بكل عباس اللي هو رانين كان ما يجتو وألتقى شوك كعي يجيبني بالجنة كل شيء اللي يشيبين صور تاني مكوح إلى هاي هذا الشيء اللي فرقان وصور مرة وجلوه رأي يجبتي marka waa waxaan electric caadi ahaan bayadu leedahay dhibaato hooshoor oo halisaab leedahay marka taasi u baabtay waxa la wixii qalab ah ee lagu shaqeeyay oo dhan nabad ka tirada isku waarkii fiir dhakhtarka inkastoo loo badbaadiyay shaybaarkii Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Oodweyne.